imaam maalik raxmatullaahi calayh ayaa maalin wuxuu arkay inan dhallinyaro ah oo shaarib alkhamriya uu sakraamay markaa deedna markuu sakraamay yarkii yaraa sakraddii baa ka siinaysaa allah 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 sheekhii uu yaabay war sakraan iyo isma aljalaala cajiib cimaamadiisii intuu soo qaaday ayuu soo socday baa la yidho dhareerkii iyo khamrigiibuu afka kaga biiyey wuxuu is yidhi bal magacii ilaahay ismuljalaala afkanuu ka soo baxaya maad ka masaxdidaa deedna markaasuu ka masaxay baa saasuu uga masaxay deedna markaasuu yidhi sheekh waa sakraansanaya iga teg waa sakraansanaya iska kaydaa markuu ka biyey buu iskaga tegey habeenkiina ugu duceeyey baa la yidhi ilaahu qalbigiisa adaahaya soo hadee imaam maalik raxmatullaahi calayh habeenkii markuu jiibsaday ayaa manaan baa lagu yidhi sidaad annaka daraadaya adigu afkiisa dhareerkii khamriga aad uga biisay ayaan annakuna adiga daraadda qalbigiisii khamriga uga biinay baa ilaahay ka yidhi khalaas salaadii maqrib salaadii fajar imaam maalik markuu salaadii tujiyey dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhex arkay yarkii yaraayoo darsigii dhex fadhiya markaasuu ma isagiibaa mise maaha markaasu u yeedhay markuu darsigii dhameeyo wuxuu yihi yarkii ma tihid haa waa anigii say wax u jiraan bal ii sheeg adigan masaajidkii ilaahay wuxuu yihi xaaladayda xalay toole kii kaaga warramay baa anigana soo aadayay buu ka yidhi xaaladayda kii xalay toole kaaga warramay adiga unba anigana isoo hadeeyey naxariis inaad naxariis noqotaa laga rabaa qofka muslimka waa raxmad dadka inaan u naxariisano kam maanta min almuslimiin ayaa ilaahay ka go-an oo xariirka ilaahay ka go-an muslimiin iska daa salaada kuwa tukanaya aqlada ku tukanaya ayuu nabigu waciid u digay wuxuu yihi waladii nafsu muxamadin biyadihi nafta muxamed kay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartee waxaa ku hamiyey buu rasuulku inaan iraado xabayso gura dab inshida hebelow salaada aqim hebelow salaada ummadda ka bixi kuwa aqalada ku tukanayay intoon u weydaarto inaan aqalada ku soo gubo ayaa ku hamiyey buu rasuulku yidhi ku saliya rasuulkeena waa nebigii naxariista badnaa waa nebigii ilaahay uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa nebiga arkay xadhig buu arkay maskiidka ku dhex xidhan markaa buu arkay nebigu xadhiggan ayaa le buu yidhi waxaa la yidhi xadhiggan ayaa xidhay zaynab baa xidhatay maxay ka dhigtaa salaata leylka markay ku daashay qabsataa uu gooyey nebigu xadhiggii wuxuu yidhi acmaasha intaad karaysaan un qabta waa acmaasha sunnaha khayrka ilaahay khayrka malaa'igtu ay nii qorayaan kama daalaan buu nebigu yidhi ilaa inigoo khayrka samayntiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka aad tihiina tukada buu nabigu yidhi habeenkaad daalantiina iska seexda buu rasuulku yidhi naxariistiisa eg umma almuuminiin juwayriya radia allahu canha halkay salaata leylka ku tukanaysay ayuu nabigu ugu soo noqday barqadii iyadoo fadhida barqadii waa 9kii subaxnimo ama 10kii xalay halkay salaata leylka ku bilowday markaasuu nabigu yidhi yaa juwayriya ma halkaan kaaga tegay baad fadhidaa ha halkaad igaga tegtay baan fadhiyaa nebi allow waa min xalay salaata leylka halkay ku bilowday salaada ilaa ay barqadii waxay u fadhidaa mar waa salaad mar waa quraan mar waa dikri mar waa munaajaat mar waa alla bari weeyaan innaga dumarkeennu maanta maasha allah madbakha subaxdii ay gashay ka dhaadhacdaa goorma ka soo baxdaa cishaa'iga ka bixi maalintay dharka maydhayaanna haweenkeennu hudheer baa aqalka lagu iibinayaa mooyaane wax kale odhan maysa dharka la maydhaya badidiisa ashyaa baan awqaaddeenna ku bixinaynaa iyakuna acmaal bay waktigooga ku bixinayn awqaad acmaal markaabuu nebigu ka naxay say cibaadada iskugu taxallujinayso markuu arkay ayuu nebigu u dabciyo wuxuu ku yidhi adiga dabada 4 kelmadood oo 3 jeer ku celiyey ayaa wixii maantoo dhan khayr aad samaynaysay haddii miisaanka lala dhigi lahaa kafad u dhigmi lahayd buu nebigu ka yidhi waa maxay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi
ومداد كلماته صدح ذا أفرتا كلمات وصدح جران الأبو رسولك يري أيا وحي ما أنت الخير سمين يسي حدي ميزانك للدق لها أودق من هيد النبي كيري نبي قال نحريست بدن عليه الصلاة والسلام إن حريست بدنا أيا دارنا يا غالي والله وحن كوهم يبو نبي قول هي كوا غلنا كدحت كنا يا إن ضبط سوق بتسيان دوني برسولك يري كانت كنا مركا كورما وردالكينا ما أنت تكتي أنت تكني ما بدن الجواب يا أنت تكن ما بدن وهذا يتطول صومر يتطول بل كنا قلت الله قبل كان سلل لحن أوكليا أيا صلاة فجر لا تكتجمع سيدات مسلح بها يعني واقي مركو بريان ورئيسنا تولدي وعالي تولد اللح بغلو قيس بكل نور سيدات نبا صلاة الصبح كسو تكتي نقصان دينين ما انت ويت على مال والبع لكن دين تعد النقصان ده كب حينيسي ايا ما انت ومضى كم مقال ما انت شغل الادويه ده ذلك قال انه شيء مايو سبب الى لها تجارته تعليمته سبب الى لها حنونك سبب يولا هي قف والبطريقه الله ولا سبب كستي وحلي وحان ضلنا اسباب الى هي لي لكن اسبابته ومضى يكون حنونيسي ما انت ومضى ويلودي أدرك يا أبا طالب بقول يا رسولك مالين مرجع النبي قريش أبو طالب قريش والله فددا مرجع سو لا يا رسولك إلهي ويمدي أبا طالب وسكره مرجع وعند محمد وهذا الرضا بإلى فددا قريش أكابر قريش بإلى فددا هذا كعبنا يا مانت بحاجة كعبنا يا إلهي دودي بعد كعبيس وليدود عقلك بنانا واحد كل شيء تيجي يندد ما نقابه ونحب فهمين أبياش ودي بنتين على النار بعد كل شيء من نمد ودي رواد كل جين يسا أنت أصلا الرمادي وحيد ويابك الله مذا لا يقع عبنا هذه قبل ما عاد كل شيء يقول بالشيء وعدانيكو هذا رأي واحد بعتا إياك عن كل شيء جاني مجرته لكن إياك خير للرباب ودانيكو بس خير قال الله ربطوا معي كلمة يقولونها كلمة ما يقولون بس حتى كلمة داير هذين عرب أورنا بغرة ونغنا يا عجم أورنا جزية كقاضي ينبولي مركز ما عادري كلمة ما لها يد هذا بس هذا كلمة داير هذا قريشي عرب أورنا إنك بغرة ونغنا يا عجم أورنا إنك جزية كقاضي يا مركز بيجال بصرك عيري ويلك 10 ما كلمة هي الواحد صبرك يقول يا ها ثمان جربا كوعلنا كلمة ايش بوكيلي مرقاب النبي كويلي لا اله الا الله هذا هو اللبان الثاني مرقاب سيدنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ملا يدي انت اللي اكيد صدح بقول يا لحدا اله اون هي سنون عابديني ايا باهيد يدي دبولي ليه محمد ما وحو ليه مد كليا عابدا ارغاس وار لا ياب له محمد دين ديسا ku ka tagaya ma hine inaga dareeriye bay yiraahdeen meesha ilaahaydeena cibaadadan caabudaynina ha ku sabirwana iska adkaysan inaga mariyo bay yiraahdeen ayu Abu Talib nabiga ku yiri hadal xunba kuma doonay waa maxay ma inta bay ka didayaan ha inta bay diidan yihiin adeer adigu kelmadda ay dhabuur qiyaamaha ku marxaate kacay سكراتك بها يا مركب أبو طالب كلمة ونيدا بس كلمة قيمة بدنا وكسر النقضي أبو طالب أبو جهل ما وصل النقضي مركب النبي ورسول زيارة أبو طالب وعوارك أبو جهل وأكفر ديا مركب النبي وأكفر يستوحي ويقول يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامة كوكو دودي دوناي كلمة داون أنا جمري مغشي بكيري لا إله إلا الله مغشي قيامة أكون شفاعة بعدك مركز أبو جهل بو أجي أبو جهل باين مركا أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب ما أنت كتجيسا ومحمد بدورك سقانا يسا أبو طالب مركا هو مسلم مركا أبو هذا النبي يقول له هلو كيري يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله
مركلي كلمة أنك ما قشيو إيده مالك قياما كو شفاعات قاضية مركاسو موسى أبو طالب هذا أبو جهل بسوجي ديو كيري يا أبا طالب مدينة عبد المطلب بتكتجسا ومحمد وركي سات قادر إسا هذا مركا أبو مرلا بتكون عليه مركي قدام بس أبو طالب حجري على ملة عبد المطلب بكل من محمد ويداب كيري حنقول من ملة عبد المطلب بكل من دينتي أبا يا شيخ كتجي معي محمد وأنا جسك كيدا مركز نفتي سكت عليه بالله مركب النبي عليه الصلاة والسلام سقول المين يكعي هلكا واكي إلهي القرآن كسو دجيه يري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال ذلك جعل تمسوا هذين يسد كي إلهي أضونا سياسوا هذين أيام مركب رسولك يري يا عمي لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يا عمي أذيرك يوم هذه ما أنت أدوى هذا شهادة ويدي ودينات كلمة مرعي مقاشيسد هذا اسكدي دي أنا قلنا حق بعد يقول هذا هاي والد كي بعدين تعاي وحن أنا قلنا كنت داليا إن إلهي دم دافع عن كوي ديو أنت اللي يغري بكهر مرقاس رسول كانوا بلابين أدعي أديركي وقال لي ما كنت أنت قولي منا أبو طالب صحابتي وين مغلى نبيكو أديركي بودعينا يا يكون أبيا صوب بلابين مركا إنه أدعيا وإلهي دم دافع نحرس ويديان مرقاس إلهي كديدو يري ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما يهاني نبي محمد يا مؤمنين ترعصا إلى الكوغية قرابدو دي كوي قال لماذا كنت انتي كوكي اوعدا تكذب إلى أهل النار أيهين إلى إلهي دم دافع ويديان ودعيان أرنتاس أرن بنان ما هنا كجوجا بنبي قالوا مركز كلمة داس تكوين كلمة دا إرادة أي النبي قلنا قلبي سكوين عليه الصلاة والسلام